shirkan ballaaran oo loogu magac daray midnimo 2 ee muddada ka soconayay magaalada Burco ayaa lagu taageerayay shirka qabsoomay wadanka Ingiriiska oo u dhaxeeyay beelaha deega bariga iyo galbeedka magaalada Burco shirkaas oo looga hadlayay sidii labada beelood ay ugu midoobi lahaayeen horumarka deegaamada ay wada degaan qodobadii shirkaas sida wada jirka looga soo saaray ayaa waxa halka ka akhriyay Cabdi Salaad shirka qodobka koowaad shirka midnimo 2 waxa uu daba socdaa kuna xiriirsan yahay shirkii midnimo 1 ee ka dhacay magaalada London ee dalka Ingiriiska qodobka labaad shirka midnimo 2 waxa uu ka shaqeynayaa danaha labada beelood ee walaalaha ah habar jeclo iyo habar yoonis waxaanu ka madax bannaan yahay dhammaan siyaasadda noocay doonto ha noqotee waana shir aan u xaglinayn mid ka mida xisbiyada iyo siyaasad kale toona qodobka saddexaad shirku wuxuu diiradda saarayaa horumarinta deegaanka ballaadhan ee ay wada degaan labadan beelood lambarka afraad shirku wuxuu ku baaqayaa in la caawiyo dadkii ku caydhoobay abaartii waddanka ka dhacday qodobka shanaad shirka midnimo 2 waxaa gundhig u ah inay muqadas tahay lama taabtaana tahay midnimada iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland shirku wuxuu ku baaqayaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland inay si gaar ah u caawiyaan dadka gobolada bariga Soomaaliland oo dhibaatadii abaartu 80% iyaga ay soo gaadhay shirka midnimo 2 wuxuu ka soo horjeedaa wax kasta oo kala fogeynaya beelaha Soomaaliland xisbiyada qarankana wuxuu ugu baaqayaa inay la yimaadaan bisayl siyaasadeed oo ku dhisan barnaamij waxqabad muwaadin kasta wuxuu uu xaq u leeyahay inuu ku biiro xisbiga uu ku qanco barnaamijkiisa siyaasadeed shirku waxa uu hambaliyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliland meel ay joogtaba sanad guuradii ka soo wareegtay goonistaagii Soomaaliland waxa kale oo shirka midnimo 2 hambaliyo gaar ah iyo bogaadin u dirayaa qodobka 9aad weeyaan u dirayaa madaxweynaha dowlad goboleedka deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar sidii mugga iyo miisaanka lahayd ee uga qayb qaatay abaartii waddanka ka dhacday waxayna halka ka hadlay cuqaal iyo gudoomiyeyaal ka soo kala jeeda labada beelood waa shir labada beelood iyo maxaan dhahay ay nabadgelyadooda iyo dhaqankooda iyo deegaankooda iyo wixii ka gaabsoomay ay ku hagaajisanayaan waxa la inoo bixiyay bari iyo galbeed warmay maxaa gobolada kale lagu bixin waayay bari iyo galbeed waxaan leenahay waxa cid baa samaysay waana waqti Ramadaan ay soo galayso bilihii barakaysnaa waqtiga shirkan uu ku beegmay waa waqti aad iyo aad u wanaagsan waa labada beelood oo qura lixda gobol ee Soomaaliland tahay Soomaaliland waa lix gobol oo gobolada waaweyn ilaa imaka sharciga ah marka laga reebo kuwa kale siyaasadda lagu magacaabay ee iyagu aan wali sharci garoobin soo noqonaya wada noolaanshaha keenaya ma aha wax marnaba saameyn ku yeelan karto waxa la isu yahay dacasuun baa moodi kara wax lagu kala tagayo waxyaabaha noocaas oo kala wax warweynaga dhaxeeya walaalaynu nahay isku mid baynu nahay deegaan baynu nahay reer buu leeyahay ku dhex jira wax alla waxaynu maanta kala leenahay ma jirto ujeedada shirkanaynu maanta isugu waxa weeyaan inaynu taageero u muujino akhyaarteennii halkaa isugu timiyo qurbajoogga ahayd ee cuqdada ah ee dadka kale ay ka sheekaynayeen ama xamaasadda la abuurayay inay ka dhex qaadaan meeshaas oo muujiyaan inaan wax cuqdada reerahan dhexool dantoodana ay u midoobaan ragga Hargeysa reer Hargeysa sheegtaan way horumareen waxay qabsadeen oo arkaysaan innaga waxaan waxba inoo faa'iideynaynin dib inoo riday ما شاء الله بر هدي بات عيد كل يوم إسلام هذا قاعدني أو عين بري قلب مهد علي قدر ستار تي في برعو.